جرنال إسماعيل سهرتيد بالمانتو حين أجور بحسابك فايدتني فرصة كوسي شبكة ورباهنتا كسماية 24 إذا ماذا هولقلك كسمين مقالة كسماية إذا ماذا هولقلك مانتا كسمين يا وحاوي سلوس وأمانك مقالة قرحية كجرين كو لمرلبو سلو إلى ليو وقع يدو إذا ماذا ضد برع هذا كده حد اللاعين مقالة ومقع أيضا كو أديجنا يو سلو إلى ليو هنتدا تدوينها هولقلك ساس كوسابسية وأنا هولقل مدة عن مانتا كو كانوا صعون دون waan gartay dad ku soo qabatay ma jirtaa howlgalkii saaka ka bilowdeen magaalada waa jiraa rag lagu soo qabtay oo xiran oo ciidanka ah si sharci darro magaalada ugu jiray oo xiran waa jiraa waan gartay maanta kulankii ganacsatada aan la yeelateen maxaa kamid ahaa hadalada kamid ahaa kulankii ganacsatada aan la yeelanay runtii ganacsatada shalay dib loo geystay marka magaalada waa xireed inay furaan magaaladana waa furantahay hadeer oo ciidamada amniga ku dhex jira magaaladana si buuxda hadda u furantahay maxaad ugu baaqi leedahay ciidamada maamulka Jubbaland inay si toos ah howlgalka ay u sii wadi doonaan mise ciidamada maamulka Jubbaland waxaan ugu baaqay ciidamada geesiyaasha runtii waxa tuugada ah magacooda dilayo ma aragtay sharaftooda ku dheeliyo kuwa geesiyaasha cadawga dhulka xoreeyay haddana diyaar ku ah inay naftooda qaaliga ku bixiyaan oo sharafta leh kuwa shaatigooda baruur baa qurmisa shaatigooda ku ciyaarayo iyo sharaftooda in ay ma aragtay ay tilaabo ka qaadaan ayaan dhammaan ciidanka horta kaasa ku amraya midda labaad waxa kale oo ku amraya in howlgalka nabad sugidda dadkooda ay sii wadaan in maxaayato askari walbana uu goobtii uu ka tirsanaa iyo xeradu ka tirsanaa iyo madaxdiisii kii ka maqnaana uu tago kii kale xeradiisu ku qaado joogo waxa jirta maanta qayb ka mid ah ganacsiga uu xirnaa maxaad ugu baaqi leedahay ganacsatada waxaan ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Kismaayo ee degmada Kismaayo dhammaantood inay ganacsigooda furaan isdajiyaan ilaahay aaminaan annagana aaminaan mas'uulna aan ka noqono annaga hantidooda iyo naftooda ugu dambeyn adigu ka faa'iideysanaya fursadda Kismaayo 24 maxaad ugu baaqlay dadka shacabka guud ahaan jubbooyinka degan dhammaan jubbooyinka dadka degan waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan inay maamul goboleedkooda dhistaan inay nabad noqdaan inay qabiil iska daayaan in ay ay ka shaqeeyaan horumarkooda carruurtooda iyo horumarka dalkooda inay ka shaqeeyaan intaas aan ugu baaqayaa aad baa u mahadsantahay jarnaale